Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal. Waan ka xumahay maanta horta ninkii saaxiibkii ahaa Axmed Sidiiq waa iga maqan yahay. Laakiin insha Allah berrito ii iman doonaa. Waxaan is iri marka maadaama uu saaxiibkaa maqan yahay, asxaabtana ay ku sugayso. Maxaad maanta u gudbin kartaa? Waxaa jira horta codsiyo fara badan oo asxaabtii qaarkood iga soo gaaray. Waan cudur daaranayaa iga raali noqdo, laakiin insha Allah wixii aan wax ka qaban karo ama aan aqaan, wax kasta aniga ma aqaan, laakiin wixii aan garan karo aan isleeyahay asxaabtood u gudbin kartaa ayaan gudbinayaa. Marka su'aalo badan oo badan oo la isoo weydiina wallahi kama wada jawaabi karo. Qaarkood maba aqaanba. Qaarkood waqtiga ayaan saamaxayn. Marka hal qof intaasoo kun oo qof oo su'aalood uma wada jawaabi karo. Marka taana iga raali noqda. Koleyto wax walba qof yaqaanana maahi. Insha Allah laakiin waan dadaali doonaa wixii karaankeyga. Haddaba waxaan rabaa waalidiin badan oo ila soo xiriiray oo xisaabaha hoos raba inay wax ka fahmaan inaan maanta qaybtan u dhexgeliyo. Insha Allah berri Axmed markuu noo yimaadana waxaan samayn doonaa qaybtii la'da xisaabta shanta ahayd. Marka taasna berri ayay noqon doontaa insha Allah. Laakiin waxaan rabaa dadka isku dhufashadii ay aad ugu wareereen qaarkood ay fahmi waayeen. Marka ma jirtaa hab kale oo fudud oo wax loo xisaabin karo? Xisaabaha qaarkood haa, haddayna tiro badan ahayn, qaabab fudud oo loo tijaabin karo oo loo qori karo oo loo samayn karaa jira. Waxaan rabaa marka hadda inaan ku tuso hababkaas insha Allah. Ii dulqaado haddii lacala anigu baa iska duubaya aniga leena xisaabta qoraya. Isku dhufashada hadda tusaalahan bal fiiri. Labo lagu dhuftay labo adigoon calculator iyo waxba raadin. Waxaa jira hab fudud oo aad ku soo saari karto xisaabaadka fudud oo dhan oo toban wixii xaggan ka soo xiga ah. Tusaale ahaan waxaad samaysanaysaa horta labada wax lagu dhufanay waa laba dhibcood ka dhigo. Haye marka laba lagu dhuftay laba dhibcood waa labadii wax lagu dhufanay. Maxaan ku dhufanayaa laba kale? Haye laba dhibcood kale qoro bis. Laba dhibcood kale. Marka labadan oo laba dhibcood ah oo u taagan labadan ayaan ku dhufanayaa labadan. Marka labadanna waa laba dhibcood oo kale. Marka waxay ku noqotay tiri intaan isku dar marka 1 2 3 4. Laba lagu dhuftay labo marka waa 4. Laba lagu dhuftay labo waa 4. Waaya. Mid kale aan tijaabino haddana. Waxaan dhahdaa 3 lagu dhuftay 3 waa meeqa? Okay. Waxaan sameynaynaa marka sanad samayn kartaa sida ugu fudud. 3 dhibcood soo qaado. Waa 3da 3 lagu dhufanay 3 dhibac ka dhigo. Haye marka 3 mar oo min 3 ah ayaad samaysanaysaa. Dhibicda koowaad waa markii koowaad. Haye dhibicda markii labaad, markii saddexaad, markii saddexaad. Iswayba dhamaataba. Okay, 3 dhibcood qoro. Okay, waad qoratay. Marka 3daas waxaad ku dhufanaysaa ayaad u baahan tahay 3 waxa ii keen lahaa. Marka waa 3 mar inaad wax qortid. Dhibicda koowaad waa 1 mar, dhibicda labaad waa 2 mar, 3dan waa 3 mar. Marka isku dar intaan. Tusaale 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 lagu dhuftay 3 waa 9. Bal fiirisa u fududahay qaabkan. Waaya. Haddana mid kale aan ku fiirino. Tusaale kale aan ku fiirino. Aan dhahno 3 haddii lagu dhufto 4 waa meeqa? Okay. Waxaad samaynaysaa 3 dhibcood horta samayso. 3da aad wax ku dhufanaysid 3 dhibcood be. Okay, 4 mar ayaan ku dhufanayaa marka. 3dan ayaan 4 mar ku dhufanaya. Sidaan ugu dhufanayaa? Marka koowaad dhibicda koowaad waa 1 mar. Haye 2 mar 3 mar 4 mar. Okay. Isku dar marka. Intaan oo la isku geeyo waxay noqonayaan 3 lagu dhuftay 4 marka. Waaye. Waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dhibcood. Marka 3 lagu dhuftay 4 waa 12. Bal sidii u fududahay fiiri. Waxaad tiraahdaa oo kale 4 lagu dhuftay 4 dheh. Maxay noqonaysaa? Maxay noqonaysaa? Waaye. Marka koowaad waxaan samaysanayaa 4 dhibcood. Waaye 4tan wax ku dhufanay weeyaan. Okay, 4 mar ayay noqonaysaa marka 4 mar inaan qaado. Marka koowaad 1 haye markii labaad
markii saddexaad markii afaraad bes waa dhammaatay isku wada dar marka intaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 afar lagu dhuftay afar waa 16 okay bal fiir sidii u fududahay waa marka la rabo tii hore haddaan ku xusuusino waa tan okay laba lagu dhuftay labo maxay ku timid laba mar labadii soo qaado haye laba maraa lagu dhuftay marka 1 2 waa laba dhibcood isku dar waa afar haye saddex lagu dhuftay saddexda dhigo lagu dhuftay saddex marka koowaad marka labaad iyo marka saddexaad okay tii afraadna waa kan tii afraadna waa tii afraad shanaadna waa okay mid kale ma samayn karnaa haddaba mid kale ma samayn karnaa oo lacala badan ma samayn karnaa okay 5 dheh su'aal waxaad dhahdaa 5 lagu dhuftay 5 waa imis marka koowaad waxaan samaysanayaa horta 5 dhibcood ayaan dhiganayaa 1 2 3 4 5 waa 5tan marka 5tan oo 5 jeer soo noqoto way marka koowaad marka labaad marka saddexaad marka afaraad marka shanaad okay isku wada dar marka 5 mar ayaan sameeyay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 5 lagu dhuftay 5 waa 25 marka habkan waa hab yacni fudud oo qofka aan isku dhufashada aqoon ama calculator aanan isticmaali karin uu ku isticmaali karo sida ugu fudud ayuu samayn karo weeyaan marka habkan haddaad barato laakiin isaga ilaa intee kuu shaqaynaya su-aashu waxay tahay ilaa intee shaqaynaya hadduu xisaab dheer noqdo oo 10 wixii ka badan uu noqdo tusaale ahaan dhibcaha hadda intaasoo dhibic ma qori karaysid laakiin tan waxay kaa caawinaysaa tirooyinka yaryar oo dhan ayay kaa caawinaysaa oo yacni ugu fudud ood isticmaali karto waxaad dhihi kartaayoo kale qof baa ku yidhi niyow 3 meelood oo min 5 waa imise 3 meelood oo min 5 ama 3 ku dhufo 15 ku yidhi markiiba calculator ma haysatid 3 mar wataa okay 5 mar ayaan qorayaa marka koowaad marka labaad ilaan waa labo marka saddexaad marka afaraad marka shanaad bes ilaan waa 5 mar okay isku dar marka 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 meelood min 5 waa 15 ama haddaad doontid caadi isugu wada dar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 saddex lagu dhuftay 5 waa 15 marka calculator kuma soo saarin waxaan ku soo saaray dhibcaha kaliya marka dadka aan awoodin ama aan haysan fursad isku dhufashada ah qaabkan ayay ku baran karaan tirooyinka yaryar oo dhan tirooyinka yar waxaan ugu jeedaa hadda tii lagu yiraahdo 97 lagu dhuftay 88 meeqa dhibac ayay noqon kartaa markaas tii kalan isticmaali doonaa oo ah 97 markaa haysatid maxaa u dhow 100 maxaa u dhow okay -3 oo kale kan maxaa u dhow -2 boqolka maxaa ka dhiman kan saddexa ka dhiman 8 markaa haysatid maxaa ka dhiman yacni tii taa ahayd ayaanu ku isticmaalanaa hadda laakiin taa diyaar uma nihin inaan ka shaqeyno tan ujeedadu wuxuu ahaa tan dhibcahan inaan qaadano oo ah sida ugu fudud aad wax ku soo saari karto mar kasta oo aad samayn karto waan rajaynayaa inay ku caawin doonto insha allah haddii aad ka heshay waad rukuman doontaa fiidiyoyada maalin walba insha allah aan soo gelin doono haddii aad yacni aad horey u haysatana way ku caawin doontaa insha allah mar kastaba marka halkaad igala socon doonto waa youtube-ka insha allah Siciid Xagaa waad arki doontaa
meelo badanna wuu ku jiraa. Marka waad mahadsantihiin. Ilaa hadda subscribe-ka aad buu u socdaa. Asxaab badan ayaa ilaa 10,000 ayuu hadda maraya. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal. Berrito iyo qaybtii xisaabka qaybta la'da oo 5 haddii dhinacan soo marta ahayd iyo aniga iyo Axmed Sadiiq ayaad heli doontaan. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.